صادق إنه وزير كهرباء عافمات كبنتلان أو شرحان مدحوينها بنتلان دورشة لفيلايو إني قبصونتو بشكواد سنة كصوص عدن لبكون سجالية طبعا أي برتمها عاصمة بنتلان أي جروي كجد واقعي مشرح نمديسة حل ما أنت لجوسو دويي مجلة الجروي سفر دير بانكايميد سفر كاردير وحنو سوقالي إن برحضان شرفت له يوجيادان كرامة كم وقته يهيبدا inaan kaga dhawaaqo inaan kamid ahay musharaxiinta dalkii uduga sanadka soo socda doorasha ka dhacaysa 8 bisha January murashaxiintaas u taagan inay xilka qabtaan baan kamid ahay wax weyn waan idin wada reer daludug oo dhan waxaan idin wada nabad waxaan idin wada horumar waxaan idin wadaa inaad ku nooshiin dalkii u hodansanaa adduunka laakiin siyaasadii ay ina dabartay mana aha waxaan iska leeyahay waa wax ogaal iyo aqoon aan u leeyahay صادق إنه كمية مشرحين تأتاجن دورشة مدحوينها بنتلان سنة كلبكون سجالية طبعا أي مجلة الجرو كشجعي إن مجلة مقدشة عاصمة الصومالية أي تهي صوماليا أي تهي مقدشة هذا أنت يريد أن جوجي وحن مغلي dagaal baa la ridaya iyo waxba la sameynaya iyo si doorashada dib ugu dhacdo iyo ku dhaqanka dastuurka daludug waxa ka haray oo kaliya in doorashada 8 January ay dhacdo wixii kale oo dhan waa lagu tuntay waa markaan run isu sheegno iyadii marka in lagu tunto wax la yeeli kara maaha cid laga yeelayana ma 8 January doorasha dhacaysa ama dagaal hal rido ama nabad ha ku dhacdo 8 January doorasha dhacaysa haddayaan dhicin wixii ka yimaada cidda mas'uulka ka ah ee qaadaysa reer dal udug waa ay garba beeleen maahan wax ilaahay ku xukumay inay gaajoodaan ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu dunida ku masruufaa dad ka tiro badan 8 bilyan oo qof suuragal maaha 3 milyan oo dal udug ku nool in guryahooda ay gaajo la fadhiyaan suuragal maaha laakiin systemkii baa gaajo ka dhigay dayuurad baan maanta xamar ka soo raacay walow xamar magaalo madaxdayadii ay tahay horaa waxaan u maqlay nin siyaasi ah oo meel madala ka yiri xamar Soomaaliya maaha Soomaaliyana xamar maaha waxaan leeyahay xamar waa Soomaaliya Soomaaliyana waa xamar dhambaal kale waxaan u dirayaa hoggaanka daludug iyadana hees howleedkii oranaysay weeye hal lagu qabay haruub loo tolay oon laga helin yaa lagu hori dhambaal kale waxaan u dirayaa Soomaali weyn iyadana waxaan leeyahay xasadkeen badan xabiibkeen jaban allow xarigiyo xooga noo adkay musharaxiinta u baratamaya madaxweynaha Puntland ayaa isa soo taraya doorashadana waxa ka dhiman wax 100 maalin ka yar mana muuqdo ififaale doorasho Maxamed Salix BC Garowe